Dagaalka ka socda dalka Itoobiya wuxuu saameyn muuqata iyo mid qarsoon ku yeelan karaa wadamada dariska la ah dalka Itoobiya. Haddaba, saameyn noocee ah ayuu ku yeelan karaa dagaalka ka socda dalka Itoobiya wadamada jaarka la ah? Waxaan maanta muuqaalkeena ku falanqeynaynaa dagaalada ka socda dalka Itoobiya. Dalka Itoobiya wuxuu ka mid yahay wadamada ugu ciidamada badan qaaradda Afrika, waxaana lagu qiyaasaa ciidamada dalkaasi uu leeyahay 162,000. Sidoo kale dalkani waxaa lagu tilmaamaa xabsiyada ugu halista badan ee caalamka ka jira. Jabhadda Xoreynta Dadka Tigreega oo loo soo gaabin ogyahay TPLF waxa ay xukumaysay in muddo dalka Itoobiya kadib sanadii 2018 oo loo magacaabay xilka ra'iisul wasaarenimo Dr. Abiy Ahmed oo ka soo jeeda qowmiyadda Oromiya. Dr. Abiy Ahmed ayaa ku guuleystay biladda abaalmarinta nabadda Nobel Peace Prize sanadii 2019. Dr. Abiy Ahmed waxa uu furfuray siyaasadda dalka Itoobiya oo ku saleysnayd kali-talisnimo, waxa uuna la yimid siyaasad ku saleysan isfaham. Dr. Abiy Ahmed waxa uu la heshiiyay dalka Eritrea oo in muddo dagaal kala dhaxeeyay dalka Itoobiya. Warbaahinada caalamka iyo kuwa gaarka loo leeyahay waxay maalmahan soo tabinayaan dagaalka u dhaxeeya jabhadda TPLF iyo ciidamada dalka Itoobiya. Jabhaddani waxay ku dhawaaqday inay ka go'ayso dalka Itoobiya. Sidoo kale jabhaddani waxay weerar ku qaatay ismaamulka Amxaarada, waxayna la wareegtay xarumo ciidan ay lahaayeen ciidamada ismaamulka Amxaarada. Xukuumadda dalka Itoobiya waxa ay sheegtay inay soo gabagabeynayso wajigii labaad biyo-xireenka Itoobiya. Sidoo kale waxay xukuumadda Itoobiya wajahaysaa dagaalka gudaha iyo mid dibadda ah. Dalalka Itoobiya, Masar iyo Suudaan oo aan ilaa hadda heshiis ka gaarin khilaafka biyo-xireenka ayaa weli madax iskula jira, gaar ahaan muddooyinkani dambe. Suudaan iyo Masar waxay dhawaan gaareen heshiisyo tababar ciidan iyo iskaashi dhaqaale. Sidoo kale Israa'iil ayaa heshiis la gashay Itoobiya oo ku saleysan biyo-xireenka webiga Niil. Dalalka Suudaan iyo Masar waxa ay cambaareen u jeediyeen Israa'iil in arrinkaasi ka dhalan karto cawaaqib xumo. Ururada ka faaloota arrimaha Afrika waxay ka digeen saameynta aan wanaagsaneyn ee ka dhalan karta dagaalada ka socda dalka Itoobiya. daawade waa kaga mahadcelinayaa daawashadaada quruxda badan. Haddii aad nagu cusub tahay fadlan waxaan kaa codsanaynaa inaad page-keena follow dhahdid. Haddii aadan ku xirnayn YouTube-keena Qaranbile, fadlan booqo oo nagu caawi hal subscribe. Daawade waa ku mahadsantahay sida aad noo siiday waqtigaaga quruxda badan.